Assalaamu calaykum daawadayaal meel kastoo aad joogtaan daafaha dunida waa Boolimoog Journal oo halkan idinka soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyay ee dunida iyo halka uu marayo xanuunka ama caabuqa COVID-19 ama coronavirus. waxaan haddaba daawadayaal idiin soo gudbinaynaa tirada saxda ah ee kiisaska ay gacanta lagu hayo iyo inta u dhimatay iyo inta dal ee uu saameeyey. waxaa la soo xaqiijinayaa hay'adda caafimaadka ee xaqiijisay ee WHO in 972,640 qof la hayo ama kiis, iyadoo ay u dhimatay in ku dhowaad 50,325 qof, halka uu saameeyey xanuunkani 206 dal oo ku kala yaala dhammaan qaaradaha adduunka. xanuunkan oo noqday xanuun aad u sii fidaya amaba aan wax laga qaban karin ayaa waxa uu ku sii baahaya dhammaan dunida, waxaana ugu daran wadamada ugu horeeya adeer laga soo sheegay xanuunkan oo aad u saameeyay dalka Mareykanka oo laga helay ku dhowaad 214,000 oo qof, isaga oo dalka Talyaaniga uu marayo 115,000 halka Spain ay marayso 110,000. waxaa la soo sheegayaa in aanu weli Shiinaha ka dhammaan, Shiinaha oo uu gaarayo 82,000 oo qof, halkaas oo meesha uu kasoo bilaabmay. waxaa sii kordhay tirada dalka Jarmalka oo iyadana lagu qiyaasay inay tahay 79,000. haddaba dalka Turkiga ayaa waxa uu u diray wadanka Talyaaniga iyo Spain maskarada wejiga lagu xirto isaga oo iyo gloveska gacmaha la gashado si uu labada dal uga caawiyo inay xanuunka uu ku sii fado. dalka Turkiga ayaa waxa isagu qudhiisu uu xanuunkan yahay dalalka uu saameeyey. waxaa kaloo dalka Chile ay dadku ka baxsanayaan goobaha caafimaadka kadib marka lagu sheegay qofka inuu xanuunka qabo ama laga helo oo uu positive noqdo. dalkaasi oo dadku ay ka argagaxeen xanuunkan oo ay cabsi ka qabaan. booliiska dalka Chile ayaa waxa adeegsanayaan qalab ay dadka ku qabtaan iyaga oo dhammaan wareegaya dariiqyada magaalooyinka waaweyn, iyadoo magaalooyinka waaweyn ee lagu soo rogay bando ayaa qofka ay ku arkaan isaga oo dariiqa maraya waxa ay ku qabanayaan qalab ay ugu talagaleen oo ay kaga fogaanayaan iyagoo dhaxda kaga xiraya, waxaana lagula hadlayaa warbaahin isagoo aan qofka loo soo dhawaan ilaa laga keeno goobta lagu baarayay xanuunka amaba lagu ogaanayay oo ay joogaan dad u khaasa u tababaran inay baaraan xanuunkan oo ah mid dhammaan dunida dhan ku sii fidaya ayaa waxa uu leeyahay saameyntiisa, iyadoo dad badani ay cabsi ka qaadeen isaga oo dhimashadiisuna ay sii kordhayso maalinba maalinta ka dambeysa. haddaba dalka Mareykanka ayaa waxaa loo bedelay ciidamadii Mariniska, maraakiibtoodii ayaa waxaa laga dhigay goobo caafimaad oo degdeg ah iyaga oo loo qeybiyey magaalooyinka waaweyn ay khatartu ku badan tahay sida New York, Chicago iyo Philadelphia, halkaasoo uu yahay halka ay ugu badan tahay uu saameeyay xanuunkani. ciidamada Mariniska ee dalka Mareykanka ayaa waxa kale dadaal ugu jiraan sidii ay u dhisi lahaayeen isbitaallo macmil ah kuwaasoo aad habeen iyo maalin u shaqeynaya si ay u caawiyaan dadka Mareykanka ah. waxaad moodaa xanuunkan inuu yahay dalka Mareykanka hadir dalka ugu horeeya ee uu saameeyey amaba uu u geystay dhibaato xoogan, isaga oo aad ugu sii fidaya ku dhowaad dadka lagu qiyaasay inuu ku dhacayna ay gaarayaan 220,000 oo qof, iyadoo dhimashaduna ay kusii kordhayso. haddaba xanuunkan ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay guud ahaan dunida ama caalamka isaga oo maalinba maalinta ka dambeysa soo koraya. xanuunkan oo ah virus qofka ku dhacaya sida hargabka oo kale ah ayaa waxa uu leeyahay caabuqin uu sanbabka qofka ka xirayo oo neefsashada u diiday, taasoo sahlaysa inuu qofku si degdeg ah ku dhinto. waa dhibaatada ugu weyn oo qofka uu ku saameeyo marka uu ku dhaco. dalka Mareykanka ayaa magaalooyin waaweyn waxaa lagu wada rogay bando, iyadoo ay meel walba ay ciidamada Mariniska ay fadhiyeen ay dib uga soo dhaqaaqeen si ay u caawiyaan dadka Mareykanka. waxaa kaloo magaalada Britain laga furay isbitaal lagu dhisay muddo 7 cisho gudahooda, kaasoo la seexin doono in ku dhowaad 4,000 oo qof. isbitaalkan waa isbitaalka ugu horeeyay si degdeg ah lagu dhiso marka laga soo tago isbitaalada caadiga ah ee dowladdu lahayd amaba horey loo jiifiyay bukaanka kuwaasoo buux dhaafiyay xanuunka. haddase waxaa muuqata in goobo kale cusub si degdeg ah loo dhisay. waxaa ka mid ah isbitaalka Nightingale oo hadda isagu xariga laga jaro 4,000 oo qof qaadi doona, waxaana ku xiga mid labaad oo isla asbuuca foodo inagu soo aadan xariga laga jari doono si loo seexiyo dadka xanuunsan. waxaa kaloo soo gaaray magaalada Philadelphia ee dalka Mareykanka markabka dalxiiska ah kaasoo dad saaraa ay ugu dhinteen xanuunka COVID-19 kadib markii uu haleelay iyaga oo badda dushooda sabeynaya.
xanuunkan ayaa waxa uu yahay xanuun musiibo ah amaba la oran karo waa mucjiso xag rabbi ka socota maadaama uu ugu tagayo dadka badda dushooda